عليكم ورحمة الله وبركاته. واتشنكيني تدوينها واحد الله نهاي فضلا سبسكرايب لايك وشير كومنتينا رمضان قابل قفك مسلم كي وديار قروبه إنه دمبي اسكرهبه دمبي صار راعي السنة كام عمري 70 تكتي ويسقم يدلها أيها الأحبة وحلنا شيء وهو الرأي أن ربنا رمضان إن وديار قرونا وإن دمبي مايدنا وهي إنه دمبي سوق الله إنه اسكم مايدنا بشهر رمضان قد هذا رمضان وفرصة غالية ونبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه شيء وحيابها كواد رمضان لقحلا إنه تهي ميل دنبيغا قفكو اسكاغا مايرو marka bisha tani waa bil u baahan zaad qaadasho inaad u diyaar garowdo zaad qaadashadaas waxay keensanaysaa acmaalu dunya dhammaanteed inaad yaraysato acmaalu aakhirana inuu noqdo hamiga weyn aad u socota haddaynu rabno acmaasheenna inaynu maximumka gaadhsiin karnana oo ah ajarka ugu badan inaynu heli karnana waa bisha la shaqaysta ajarka ugu badanaya inaynu yana isku dayno halka ugu sarreysa inaynu gaari karno saawgeed baa xadiista saxiixeynka ku soo arooray wuxuu nabigu tilmaamayaa man saama ramadaana iimaanan wahtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dambi qofka ramadaan sooma isagoo rumaysan alle iyo rasuulkiisa iyo aakhira iyo ajarkeeda iyo wixii la faro dhan isagoo rumaysan wahtisaaban ilaahay dartiina u soomaya wuxuu nabigu yidhi ghufira lahu maa taqaddama min dambi kaa waxaa la dhaafaa dembigiisii hore markaas haddana mar labaad nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan wahtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dambi ninka ramadaan kaca ee tukada iyadoo shardigii weli uu yaallo iimaanan wahtisaabana ghufira lahu maa taqaddama min dambi dunuubtiisa wixii hore uga dhacay baa la dhaafaa haddana mar saddexaad buu nebigu wuxuu tilmaamay habeenka laylatulqadriga ninkii kaca ee iimaanan wahtisaaban la yimaada salaad tukadoo cibaadaysta ixyaa sameeyo nooleeya ghufira lahu maa taqaddama min dambi idan saddex shay buu nebigu tilmaamoo ramadaan ku jira oo saddexdaba dembi dhaaf lagu helo mid waa soonkii maalinimo la soomayey midna waa habeenkii wixii la tukanayey midna waa habeenka laylatulqadriga oo si gaar ah habeenada kale uga mudan oo sanadkoo dhan dee habeenka ugu fadli badana saddexdaa shay bay ramadaan wadataa oo saddexduba yahay in dembiga lagu dhaafo si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa wuxuu ku tilmaamayaa qofkan qowlu zuur iyo walcamalu bihi iyo waxaa iska tegan ilaahay cunna inuu ka tagayo sharaab dankama laha macnuu waxa weeyaan qardiga koowaad ama qasdiga koowaad ramadaan aynu u qasdiyeyno waxyaabaha ugu buuran waxaa ka mid ah inaynu u xaydxaydinno sidii ilaahay dembigeenna u dhaafi lahaa dee qofka raba in dembigiisa la dhaafaana dee waa inuu ka dambe joojiyaa kana hadda ramadaan baan wax walaaqaya haddana kii hore in layga dhaafaa baan rabaa dee waa mushkilad haddaad rabto cutuur iyo inaad wax isku buufiso adoo uskagaaga iyo qununkaaga la isma buufiyee marka dhididkiiyo waxa hore iska maydhaabaa la isbuufbuufiyaa waxaan uga dan leeyahay inay noqoto bil aynu toobad keenayno oo dabeetana dembi dhaaf ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanayno oo iimaanan wahtisaaban ka la sheegay uu dhab inaga yahay ramadaan marka ayuha alaxibba waxa koowaadaan u diyaargaroobaynaa waa inaynu dembi iska maydhno diyaargarowgeenna koowaad waxa weeyaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala bishatan dembigeenagaga maydho nabigu inoo tilmaamay dembiga mid maalinle oo la maydhaa inuu jiro acmaal toddobaadle dembiga lagu maydhaa inay jirto acmaal sannadle dembiga lagu maydhaa inay jirto saawgeed buu xadiidka muslim wuxuu nabigu ku tilmaamayaa salaadaha shanta ahi dembigay maydhaan midba tii kaga horraysay intii dembi aad gashay bay maydhaysaa jumca ilaa jumcana dembiguu maydhaa ramadaan ilaa ramadaanna dembigay maydhaa haddii kabaa'irta laga fogaado waayo kabaa'irtu dee dembi dhaaf waxay u baahan tahay toobad sagaa'irtu laakiin dee horta ma yara kitaabka la qorayana laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha baa ilaahay tilmaamayay
هذا واحد قياسته صبحي واقو مركو كوبر يا دندا كلا قادو إلى يا أنت تكسي حنيسو وحي أبضان طهي إن هذا ما هضل إسامة مد هضل يدقيسينيس واقو مركو كوبر يو إلى يا أنت تكسي حنيسو أنت كان حله أما هذا ورمية أما قار ورمية دقيسينيس أنت عبادة السمين السجاري يسكتر سنت الغياب حد بحسابي ساعة أنت واتلو خيرات كي شغينيس واتسلاذي ميزانك حسناتك كو قرميس أنت تسلاذي ميزانك الشركة كو قرميس وهي النبي عليه الصلاة والسلام حينات الماء والصيام جنة كاشان بويدين كي يدن بيك هدي متكين مالنتي سصونت وصومين يهي يو رفض سمينا أفحمي يو كهدلك يو بوقي نوع عيتمن يو ضدك ماقي هدي لغو دقالمو waxaad tidhaahdaa war waan soomanahay sidaa awgeed furaska waqtiyada fursadda aad helayso lama dayaco مثلا ninka taajirka ah ee dukaanka yar ee dharka haysta waqtiyu diyaar garooba in xog wax loo iibsanayo مثلا dadka muslimiinta ah waqtiyada ay dharka gataan maxaa u badan caruurta iyo reeraha waxa ciidaha u badan بعض هذو عيد السياحة كور أنا كنت لقلين لبدي عيدودين وحيبيو وحلقة يا سنة كنا وحيبين يا كبضة وحيبية محي لبضة وقتي سادر ردد بان كستو تجارة دا كتير وحيس كده يا إنه ودي أرجروبه إن أنا يدافن فرصة تاني نور شو نبع عين كاسية عيد ولبا وقتي إيه فرص كده هالشهر وتشابي سيرنا فرصة دا أنا كدافن diinahaan markaad ajar ka fakarayso salaadaha kala ajar badan maalmaha kala ajar badan habeenada kala ajar badan acmaasha la qabanaya kala ajar badan awraadda la akhrinaya kala ajar badan qofka xoogga u fakaraya wuxuu isku dayayaa wax walba xagga sare inuu ka heli karo wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisuun inaad xagga hore marto bisha tani markaa waxay ka mid tahay فرصك وقبضنا دتك مسلمين أي أجر كرادية أجر كي وقبض ناس سيدا دوه اللي كرلهاي ووقتها كان سيدا وقيت سنة كوحيك وصرع عودنا نتكمل يدو رمضان بقى ماشي اللو ديار قرو وحنو قدر لأيه بس هذا هو فرصة إن أجر كوقبضا شقيسا كرتو وأعماش أنا أجر كود وموازين تاينو نقانا أنا كتشرين أي صنطو كمتاي sida awgeed waxa haboon inay bisha tani qofka muslimkii uu diyaar garow dhaba uu diyaar garoobo oo ah si aad maximumka u gaadho waxa fiican acmaasha dunawiga intaad iska yareyn karto inaad iska yareyso oo deeyada bishan acmaasha la qabtay gaarka waxa kamid ah wixii i'tikaafka loo oran jiray i'tikaafkuna waa inaad masaajidka bas ku soo xidho acmaasha dunawiga oo dhan oo kale inaad iska timaado حتى يضل غيابا عماشا لفتيد وقارا جركو جرينو ياهي وقتيدا تن waxay yiraahdaan waxa sii fadli badan ina tan cibaadada maxdiga aad u sii baxday bisha tan in loo diyaar garoobaaba fiican laakiin maxaynu ugu diyaar garoobaynaa ma cunno iyo wax la mid ah waxaynu ugu diyaar garoobaynaa inaynu heli karno wixii dambi aynu xambaarsanayna inaynu iska rogno iska reebno أجر أنت لا شقيسن كريا أنت وقبضنايدا إنه شقيسنه سوجد بقى النبي عليه الصلاة والسلام حديث تيو نصوص تبدل كصار توحيد الماما يا نعم ما شاء الله سمايا أنت بدل رمضان حتى في غير رمضان إنك فدي بدي قرآن آخر هالنقطة صدق الله سميني هالنقطة صلاة دي عبادات سميني هالنقطة وحنود ما أجور تودين يتربضن بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله تعالى وركوبا وحين كتل ما مدونا سيدينو سودوين نامو استقبالينو بشهر رمضان وإنه أقنا هينا يكمل تهي أركانتي إسلامك والنبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5
islaamnimada shan ayaa lagu bineeyey uu nebigu tilmaamayo shantaasi ay ka mid tahay markaa waa sawmu ramadaan bisha ramadaan in la soomo idan rukni weyn oo ka mid ah arkaanta islaamiga ayaynu isku dayaynaa inaynu gudanno nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa ugu bushaarayn jiray waa xadiidka sunan النasaa'i ku yaalla sheekh alalbaanina saxiix ligayri ku tilmaamayo wuxuu nebigu leeyahay ataakum ramadaan shahru mubaarak farad allahu caza wajalla calaykum siyaama waxaa idiin yimi bishii ramadaan oo bil barakaysana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala soomkeeda idinku waajibiyey albaabada samadaa la furaa ma albaabada jannadaa la furaya albaabada naartana waa la xidhayaa buu nebigu tilmaamay shayaadiinta kuwooda waaweyn ee maradadaana shayddaannimada ku mudxay kuwaana waa la xidhayaa waxaa ku jira buu nebigu ku bushaareeyey habeen kun habeen ka fadli badan qofkii khayrkeeda laga mamnuuco ee khayrkeeda heli waaya kaasi waa khayrlaa wuu nebigu ku tilmaamaya faqad xurim yacni waa mid khayrka laga mamnuucay sidaa ogeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu bushaaraynayaa qiimaha ay ku leedahay dadka muslimiintaa agtooda iyo sida la rabay in loo weyneeyo waxaa kuugu filan nebigu calayhi salaatu wasalaam weynaynteeda waxa uu ku tilmaamay oo runtii keensanaya in qofka muslimka isku daya inuu bishatan uu u diyaargaroobo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan ee sunan ibnu maaja ku yaalla sheekh alalbaanina uu saxiixinaya ama xasan ku tilmaamayo طalxa ibnu cubaydillaah saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay laba nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo mar soo wada islaamay oo islaamnimadoodu mar qura wada ahayd طalxa ayay la joogeen waxaa mide aad buu u dadaali jiray laakiin labaduba waa dadaalayeen laakiin ninbaa dadaalkiisu aad u muuqday markii dambena jihaad buu istishaad ku qaato shahiid buu noqday kii kale wuu ka nolol dambeeyey oo sannad buu sii noolaa kadib buu sannad dabadeed kii kale dhintay riyo ayuu ku riyooday markaa طalxa ibnu cubaydillaah riyada wuxuu ku riyooday iyadoo jannadii looga yeedhayo dabeetana albaabkii jannada inta la fura kow waxa loo yeedhay kii dambe dhintay labada kii shahiidkii hor dhintay mooyaane kii dambeeyey ayaa loo hor yeedhay markaasaa haddana loo yeedhay buu yidhi kii shahiidka noqday kadib baa aniga laygu yidhi buu yidhi adiga weli wakhtigaagii may gaadhin warkii baa saxaabada gaadhay waa la isla dhex maray dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi miyaa la yaabantiin haabay yidhaahdeenoo labada nin dee ka hore nala dadaal badnaa kii hor dhintay ee weliba jihaadka galay ee shahiidka noqday kaas baa dee dadaalkiisu nala badnaa bay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam su'aal buu weydiiyey alaysa qad makatha haada bacdahu bisana kani kan dabadii miyaanu sannad noolayn buu nebigu yidhi waxay yidhaahdeen haa waa noola ramadaanna waa soo gaadho waa soomay oo waa tukaday oo masaajidkuu ku tukaday soo maaha buu nebigu yidhi sannadaas markaasay yidhaahdeen haa kadib buu nebigu yidhi famaa baynahumaa abcadu mima bayna asamaa'i walard labada nin waxa u dhaxeeya inta cirka iyo dhulka u dhaxaysa yacnii kan cimriga dheeraadkaa la siiyey ee dabeetana cimrigii dheeraadkaa bil ramadaan weliba u soo gashay ee bishii ramadaan soomay ee masaajidka salaadda ku tukanayey ayuu nebigu wuxuu tilmaamayaa acmaashaa uu samaystay ee kaa hore ka xidhmay inay dhaafinayso kii hore acmaashaana wuxuu nebigu ka tilmaamay soon iyo salaad idan hadday qiimaha intaa leeg ramadaan iyo ajarka la helaa sidaa uu yahay waxaa habboon in ramadaan loo diyaargaroobo oo aan cunno loogu diyaargaroobin dadku inta badan waxay dhaha bishii ramadaan baa soo gelaysa dabeetana reeraha biilkooda la kordhiyayo cunnada aad loo badsadaa cunnaduna waa wixii laga soomayeyba waxay ahayd bishana biilku hoos u dhaco oo dadku cunnada yaraysto oo la soomo
akhriya adduuma saasay faa'iidadu ku jirtaa. waxaan rabaa markaa laba qodob oo qura inaan tilmaamo. labada qodob waxay yihiin ramadaan kow waa bil qofka muslimkii uu u diyaargaroobo inuu dembiga iska reebo. waa bil uu u diyaargaroobo qofka muslimka ah sidii sanadka ama cumrigiisaba intii tagtay dembigii soo raacay uu isaga maydhi lahaa. hammi almaghfira waa inuu ku noqdaa agteenna hammi aad u weyn. waayo dadku saxaabada matala nebigu calayhi salaatu wasalaam baa nin u yimi saxaabiyi, markaasuu wuxuu yidhi nebigu markuu ka warramay jihaadka iyo aliimaanu billaahi iyo in la jihaatamo iyo acmaasha ugu fiican inay tahay, ayuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddaan dagaal galo oo jihaatamo lay dilo dembigayga ma la dhaafaya? dabeetee nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam in qutilta fii sabiili illaahi wa anta saabirun muxtasibun, haddii aad dhimato ilaahay dartii jidkiisa laguu dilo adigoo sabraya oo xisaabsanaya oo soo jeeda waan dhabar jeedin oo sii ordaynin haddaad sidaa ku dhimato haabuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ninkii baa haddana uu nebigu su-aashii dib ugu celiyo markaasuu yidhi kayfa qult, maxaad igu tidhi? ninkii baa warkiisii ku celiyey oo ah dembigayga ma la dhaafaya haddii aan dee jihaatamo geeriyoodo? nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haa waa la dhaafaya. intii hore u sheegay buu nebigu yidhi illa dayn mooyaane. daynta bini aadamka xaqiisa inta laga qaatoo loo indhacaseeyo kaa isaga la dhaafi maayo. jibriil baa hadda ii sheegay buu nebigu yidhi, xadiisku saxiixu muslimku ku yaalla. idan waxaad arkaysaa saxaabadani hammigoodu inuu ahaa dembigayga ma la dhaafaya. waxa uu raadcaynayaa waxa weeyaan xataa jihaadkan iyo baabkan oo dhan inuu dembi dhaaf helo. si awgeed ba ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa duul kale oo muslimiinoo hammigoodu ka ahaa. fircawn saxaradii ka hor timi ee nebi muuse markii mucjizaadkiisa ay arkeen ilaahay rumeeyey, fircoon waa hanjabay oo wuxuu yidhi waa idin laynaya, gacmaha iyo addimadan talantaa laydiin goynayaa oo waa idin salbinayaa, geedkaan idinku xidhaya oo saasaan idiin gelayaa buu ku hanjabay. waxay iyaguna ugu jawaabeen saa qur-aanka rabbi ku tilmaamayo qaaluu laa dayra innaa ilaa rabbina munqalibuun innaa natmacu an yakfira lanaa rabbuna khataayaana an kunna awala almu'miniin. dhib uma aragna bay leeyihin waxaad sheegaysa oo dhan, ilaahay xaggiisaannu u noqonaynaa waayo waxaannu rajo ka qabnaa bay leeyihin in ilaahay dembiga iyaga dhaafo ayaannu rajo ka qabnaa maadaamaannu noqonnay awala almu'miniin. xadiidka iyo aayadda qur-aaniba waxay tilmaamayaan marka hamulmaghfira say dadku uga fakarayeen dembigooda inaan la dhaafo, waxay dhaafsanayaanna uu yahay inay naftooda waayaan. haddaba ramadaan waa fursad qaaliya oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxyaabaha koowaad ee ramadaan laga helaa inay tahay meel dembiga qofku iskaga maydho. misfaat uu qofka muslimkaahi xamaamu dembiga iskaga maydho, uskagiisa uu ku reebo. si awgeed baa axaadiista saxiixaynka ku soo arooray wuxuu nebigu tilmaamayaa man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. qofka ramadaan sooma isagoo rumaysan alle iyo rasuulkiisa iyo aakhire iyo ajarkeeda iyo wixii la faroo dhan isagoo rumaysan, waxtisaaban ilaahay dartiina u soomaya. casrigan aynu maanta nool lahay dee soonku waabu iska tiro badanya isagoo noocaya. soon siyaasiyaa jiro la yidhaahdo dad baa dowladda ka hor yimo afkay xidheen oo cunnaday ka soomeen si ay qadiyaadkooda u muujiyaan. soon baa jira dadka badh la ysku dhuubo la yidhaahdo miisaanka si looga rido intaas inaanu wax cunin. soon baa jira xataa kuwana yidhaahdaan malikaatuljamaalka iyo waxa kan aflaamta dhigiyo kuwa kan la soomiyo oo la rabo qurux inay ku yeeshaan. laakiin kani waa soon ixtisaab ah, soon danta laga leeyahay ay tahay in ilaahay dembigaaga ku dhaafo. soon dantiisa koowaad iyo qaradku uu yahay iimaanan waxtisaaban. wuxuu nebigu yidhi qufira lahu maa taqadama min dembi, kaa waxaa la dhaafaa dembigiisii hore. markaase haddana mar labaad nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. ninka ramadaan kaca ee tukada
iyadoo shartigii weli uu yaallo iimaana waxtisaabana gufira lahu maa taqaddama min dembi dunuubtiisa wixii hore uga dhacay baa la dhaafaa haddana mar saddexaad buu nebigu wuxuu tilmaamay habeenka laylatulqadriga ninkii kaca ee iimaanan waxtisaaban la yimaada salaad tukadoo cibaadaysta ixyaa sameeyo nooleeya gufira lahu maa taqaddama min dembi idan saddex shay buu nebigu tilmaamoo ramadaan ku jira oo saddexdaba dembi dhaaf lagu helo midi waa soonkii maalinimo la soomayey midna waa habeenkii wixii la tukanayey midna waa habeenka laylatulqadriga oo si gaar ah habeenada kale uga mudan oo sanadkoo dhan dee habeenka ugu fadli badana saddexdaa shay bay ramadaan wadataa oo saddexduba yahay in dembiga lagu dhaafo si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa wuxuu ku tilmaamaya qofkan qowlu zuur iyo walcamalu bihi iyo waxaa siga tegan ilaahay cunno inuu ka tagayo sharaab dankama laha macnuu waxa weeyaan qardiga koowaad ama qasdiga koowaad ee ramadaan aynu u qasdiyeyno waxyaabaha ugu buuran waxaa ka mid ah inaynu u xaydxaydinno sidii ilaahay dembigeenna u dhaafi lahaa dee qofka raba in dembigiisa la dhaafaana dee waa inuu ka dembe joojiyaa kana hadda ramadaan baan wax walaaqaya haddana kii hore in layga dhaafaa baan rabaa dee waa mushkilad haddaad rabto cutuur iyo inaad wax isku buufiso adoo uskagaaga iyo qurunkaaga le la isma buufiyee markaad dhididkiiyo waxa hore iska maydhaabaa la isbuufbuufiyaa waxaan uga dan leeyahay inay noqoto bil aynu toobad keenayno oo dabeetana dembi dhaaf ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanayno oo iimaanan waxtisaabanka la sheegay uu dhab inaga yahay si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu mimbarka koray dabeetana markuu jaranjaro fuulaba aamiin buu yidhaahdaa wuu sii socdaa aamiin buu yidhaahdaa wuu sii socdaa aamiin buu yidhaahdaa markaasay saxaabadii weydiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiyo waa aamiin baad leedahay caadadaadana may ahaan jirin mimbarka markaad fuusho inaad aamiin tidhaahdaaye xadiidka riwaayada ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma ay soo saareen wuxuu nebigu yidhi man adraka shahra ramadaan falam yugfar lahu fadakhala annaara faabcadahu allah qul aamiin faqultu aamiin jibriil baa yimi buu yidhi ina jibriil calayhi salaam aataanii faqaal jibriil baa yimi wuxuu yidhi qofka bil ramadaan soo gaadho ee dembigiisa la dhaafi waayo ramadaan oo la yidhi soonkaa dembiga lagu dhaafaya oo qiyaamuleylka lagu dhaafaya oo laylatulqadriga lagu dhaafaya waxaasoo dhamme intay soo maraan haddana dembigiisa la dhaafi waaye naar gala kaa ilaahay naarta ha ku fogeeyo jibriil baa habaarkaa wada nebi maxamedna aamiin buu ka dabalayay waxaad qiyaastaa sayidulmalaa'ika oo ducaynaya iyo sayidulkhalqi oo aamiin ka daba leh in jibriil la duceeyo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam aamiin ka daba yidhaahdo waxaa lagu ducaynayaana ay tahay qofkay ramadaan u soo gashay dembigiisa la dhaafi waayo isla xadiidka oo mar labaad abu hurayra warinayo riwaayadda imaamu tirmidi uu soo saarayo xadiidkana sheekh alalbaani saxiix buu ku tilmaamaya ayaa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ragima anfu rajulin dukirtu cindah falam yusalli calay sanka ha u dhaco ama afka ciidda ha la galo yacni waa eray tilmaamaya qofka halaagiisa iyo dhibtiisu inaanay qiimo badan ku fadhinin qofka agtiisa laygu soo hadal qaada buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ee aan igu sallinaynin haddana mar labaad buu ducadii ama habaarkii ku celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu ka kalena wuxuu ku sheegay rajulun dakhala calayhi ramadaan uma insalaka qabla an yugfara lah nin ramadaan u soo gashay oo ramadaan ka dhammaatay intii aan dembigiisaba la dhaafin ramadaan u soo gasho ramadaan ka dhammaatay iyadoo aan dembigiisa la dhaafin ka saddexaadna wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nin labadiisii waalid ama mid ka mida soo gaadhay oo janno geli waayey yacnii iyaga xisaabfalkooda janno ku geli waayey ramadaan marka ayuhalaxibba ereygaan raba inaan tilmaamo wuxuu waxa koowaad aan u diyaargaroobaynaa waa inaynu dembi iska maydhno diyaargarowgeenna koowaad waxa weeyaan in ilaahay subxaana wa tacaala bishatan dembigeenna kaga maydho nabigu inoo tilmaamay
dembiga mid maalinle oo la maydhaa inuu jiro acmaal toddobaadle dembiga lagu maydhaa inay jirto acmaal sannadle dembiga lagu maydhaa inay jirto sawgeed buu xadiidka muslim wuxuu nabigu ku tilmaamayaa salaadaha shanta ahi dembigay maydhaan midba tii kaaga horraysay intii dembi aad gashay bay maydhaysaa jumca ilaa jumcana dembiguu maydhaa ramadaan ilaa ramadaanna dembigay maydhaa haddii kabaa'irta laga fogaado waayo kabaa'irtu dee dembi dhaaf bay waxay u baahan tahay toobad sakaa'irtu laakiin dee horta ma yara kitaabka la qorayaana laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha baa ilaahay tilmaamayay adi waxaad qiyaastaa subaxii waagu markuu kuu bariyo aad indhaa kala qaado ilaa yaa intaad ka seexanayso waxay u badan tahay inaad ama hadlaysa ama mid hadlaya dhegaysanaysa waagu markuu kuu bariyo ilaa yaa intaad ka seexanaysa inta ka dhexleh ama adaa warramaya ama qaar warramayaa dhegaysanaysaa inta aad cibaado samaynaysa gaar inay iska tirsantaa laga yaabo waxaad dib u xisaabisaa intaa intee baad talow khayraad ka shaqaynaysa waad is leedahay miisaanka xasanaadkay ku qormaysa intaad se is leedahay miisaanka sharkay ku qormaysa acmaasha aynu samaynaynaana hadday dee acmaal kaamila tahay waa dhab way dhaafaysaa waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso oo salaadba salaadda ku xigta hadday dembiga dhaafayso jimcaha maxaa u soo hadhaya ilaa intaasoo salaadood baad soo tukatee se jimcaba haddii toddobaad kasta jimcaha lagaa dhaafayo ramadaanta maxaa u soo hadhaya ay dhaafaysaa horta waxa isweydiinta leh salaadaha dembiga dhaafa waa kuwe ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay waaqimi salaata طarafiya الnahaari wazulfan min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat dalika dikra lildaakiriin waa dhab in salaaduhu dembiga maydhaan laakiin nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawud iyo nasaa'i iyo kayrkoodba warinayaan sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo ina arajula layansarifu wamaa kutiba lahu ilaa cushru salaati midkiin buu nebigu leeyahy salaad buu tukadaa iyadoo aan salaaddii looga qorin 10 meelood oo meel mooyaane 10% 10% ayuu salaaddiisii leeyahay qaar baa tusuc leh 9 meelood oo meel tumun wuu soo waday ilaa uu qaar soo gaadhsiiyey 50% qaar baa 50% leh dee salaadda horta inta aad soo jeedaa baa lagu qorayaa oo maqbuula inamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin inta aad soo jeedaa ilaahay la khitaabaysa dhabtaa baa lagu qoraya oo inta kale maxay noqon xaalkeedu ilaahay baa garan laakiin kolleyba cidi ku odhan mayso salaaddii mar labaad tuko salaaddu adiga way kaa hadhay tukashadeed iyo mar dambe lagu qabsan maayo maxaad u tukan weyda laakiin wixii la rabay ma helaysaa sidaa awgeed ba safka waa ku wada jiraa laakiin isku ajar ma nihin isku wax ma duhur la wada tukay ama casar la wada tukay laakiin casaradu ma sinna ilaahay waa loogu kala dhow yihi surankuna kuma sinnin ramadaantuna waa sidii oo kale idan jafjafkeenna marka laysu geeyo haddii wixii casar iyo duhur intii u dhaxaysay ama subax iyo duhur intii u dhaxaysay jafjafkaagii laysu geeyey hadday dhammaystiri waayaan tadambaa waxoogaaga lagaa jafaya haddii waxoogaagaagii marka laysu geegeeyo ilaa jimcaha jafjafkii uu tari waayo dee salaatuljimcaha maydhaysaa usbuucyadii wixii ka soo hadhadhay hadday suurtoobi weydo ramadaantaa meesha loo diyaargaroobo in layska maydho sanadka wixii ku soo raacay sanadka wixii ku soo raaco dhan inaad iska maydho ramadaan baa meesha loo diyaargaroobo sidaa awgeed waxay leenahay shayga ugu horeeya ee aan rabno ramadaan inaan u diyaargarownaa waa inaynu dembi maydhno wixii aynu dembi soo gallay inaynu iska maydhno bisha ramadaan gudaheeda xadiidkaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegayo saddexdaa noocba in dembiga loo maydho inaynu u diyaargarowno qodobka labaad aan tilmaamayaana waxa weeyaan aadanuhu iyadoo furaska wakhtiyada fursadda aad helayso lama dayaco maalan ninka taajirka ah ee dukaanka yar ee dharkaa haysta wakhtiyuu u diyaargaroobaa in xog wax loo iibsanayo
مثلا dadka muslimiinta ah waqtiyada ay dharka gataan maxaa u badan caruurta iyo reeraha waxa ciidaha u badan bacdu hadduu ciida seexda ka waran aanu ku talagelin labadii ciidood inuu wax iibiyo waxa laga yaabaa sanadkoo dhan wuxuu iibinaya inay ka badato wuxuu iibiyo maxay labada tan waqti saadaradeed baa nin kastoo tijaarada ku jira wuxuu isku dayayaa inuu u diyaar garoobo inaanay dhaafin fursadda tani noloshoo dhan baa caynkaasi cid waliba waqti ayay furaskeeda heshaa oo tijaabisaa inaan fursadda aanay ku dhaafin diin ahaan markaad ajar ka fakarayso salaadaha kala ajar badan maalmaha kala ajar badan habeenada kala ajar badan acmaasha la qabanaya kala ajar badan awraadda la akhrinaya kala ajar badan qofka xoogga u fakaraya wuxuu isku dayayaa wax walba xagga sare inuu ka heli karo وفي ذلك فليتنافس المتنافسون inaad xagga hore marto bisha tani markaa waxay ka mid tahay furaska ugu badan ee dadka muslimiinta ay ajarka raadiyaan ajarkii ugu badnaa sidaad u heli kari lahayd waa waqtiga kan waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay acmaasha kale oo dhan bini aadamkaa iska leh soonka mooyaane fa innahu lii waana ajzi bihi soonkase anigaa iska leh oo anaa ka abaalmarinaya wasiyaamu junna gaashaan buu idinka yahay dembiga haddii midkiin maalintiisa soonta uu sooman yahay yuu rafad samaynan afxuma yuu ku hadlin yuu buuqin oo caytamin yuu dadka maagin haddii lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa war waan soomanahay xadiidkaa dheer innagu qaybta ugu horrayso qudhaan hadda uga dan leenay soonka anaa iskale baa ilaahay yidhi acmaashoo dhan cidaan ilaahay ahayn baynu u samaynaa maya camal kastoo aynu isku dayna inuu la nimaadno dee ikhlaas iyo ixtisaabi baynu ula nimaadnaa ilaahay subxaana wa tacaala waxay culammadu isweydiiyaan maxaa soonta rabbi xaggiisa gaar loogu yeelay waxay culammadu yidhaahdaan iyagoo deliishanaya xadiidka imaam anasaa'i sanadka saxiixa uu ku soo saaray kullu xasanatin yacmaluha ibnu aadam falahu 10 amhaaliha ila siyaam acmaasha qofka bini aadamkii sameeyo waxaa loogu jaangeeyaa jaangoynta ugu yara waa 10% waa halkiiba 10 laab halkiiba 10 laab 10% maaha yacni waa midhkaad samaysaba in lagu 10 laabo 10 laabku luqadan dambe ay ku hadlaan haddaynu ku sheegno dee waa 1000%. ilaahay subxaana wa tacaala waa kariim adeeq badan yihi midhkii haddii midh lagugu siiyo dee waa 100% baad faa'iida boqolkiiba boqol baad heshay intaad samaysay in leeg laakiin marka la 10 laabo waa aad buu u tiro badan yahay waxaa qur-aanku kaloo inoo sheegay kuwo intaa ka badan yahay oo 7 sanaabil aayadda kay tilmaamaysay 700 jeer qaar loo labanlaabayo waxaa kaloo la sheegay qaar looga badiyo culammadu waxay yidhaahdaan mawaasiinta wax lagu qiimeeyo kale qur-aan iyo xadiidku in badan bay ka hadleen laakiin mas'alatu soom hadday noqoto soontii alla rabay oo ah taa iimaanan waxtisaaban loola yimi taa aan buuq iyo qaylada iyo dagaalka iyo afxumadu la soconin taa cibaadaadka iyo ilaahay loogu dhowaanaya leh tii rabbiina amray soontii ahayd haddii loola yimaado iyadu miisaankaas oo dhan way ka baxsantay macnaheedu waxa weeyaan ajarkeedu wuu ka badan yahay bay culammadu ku tilmaamayaan oo waxay leedahay ajar markaasi ka badan yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliimka ah saa awgeed iyo axaadiis badan waxaa ku soo aroortay kullu camal ibnu aadam yudaacaf lahu alxasana ب10 amhaaliha ilaa 700 ضعف qaala allahu subxaanah ila sawma fainahu lii waana ajzi bihi waa xadiis saxiixinka ku yaala ama quraanka inamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab ay mufasiriintu ku tilmaamaan in lagaga warramayo waxaan uga dan leeyahay masaladan waa fursad ah inaad ajarka ugu badan shaqaysan karto waa acmaasha aan ajarkoodu mawaasiinta aynu naqaano aanay ku jirin ayay soontu ka mid tahay sida awgeed waxaa habboon
inay bisha tani qofka muslimkii uu diyaargarow dhaba uu diyaargaroobo oo ah si aad maximumka u gaadho waxa fiican acmaasha dunawiga intaad iska yarayn karta inaad iska yarayso oo dee iyada bishan acmaasha la qabtay gaarka waxa ka mid ah wixii ictikaafka loo odhan jiray ictikaafkuna waa inaad dee masaajidka isku soo xidho aad acmaasha dunawiga oo dhan oo kale inaad iskaga timaado xataa iyadoo laga yaabo acmaasha lafteedu qaar ajar ku jiray inuu yahay waqtiyada tan waxay yidhaahdaan waxa sii fadli badan inaad tan cibaadada maxdiga aad u sii baxdid erayadaan tilmaamaya markaa waxay ku kooban yihiin bisha tani in loo diyaargaroobaaba fiican laakiin maxaynu ugu diyaargaroobaynaa ma cunno iyo wax la mid ah se waxaynu ugu diyaargaroobaynaa inaynu heli karno wixii dembi aynu xambaarsanayna inaynu iska rogno iska reebno ajar inta la shaqaysan karaya intii ugu badnaydna inaynu shaqaysanno shawgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista iyo nusuusta badane ka soo aroortay waxay tilmaamayaan acmaasha la sameeyo inta badan ramadaan xataa fii hayri ramadaan inay ka fadli badan yihiin quraan akhris ha noqoto sadaqa la samaynaya ha noqoto salaadaad iyo cibaadaad la samaynaya ha noqoto waxaan oo dhamma ujuurtoodu inay tiro badanayso marka bisha tani waa bil u baahan zaad qaadasho inaad u diyaargarowdo zaad qaadashadaasi waxay keensanaysaa acmaalu dunyaa dhammaanteed inaad yaraysato acmaalul aakhirana inuu noqdo hamiga weyna aad u socotaa haddii dadkaas qur-aanku uu ka warramay ama xadiistu ay ka warramtay ay rabtay dembigooda in lagu dhaafo in qudhoo layska jaro oo uu nafta u bixiyo oo uu leeyahay bidix iyo midig iyo saad doonayso noo googoo waxaanu tamacnagaga jiraa ilaahay dembi dhaafkiise nabi maxamed wuxuu inoo sheegay bisha tani inay tahay bishii dembi dhaafka marka anigu kelmadayda caawa waxaan ku soo koobaya waa labada qodob oo qura waa war haddaad doonayso in ilaahay uska geeyo dembigii waxa mashaakilina haystoo dhammina waa dembi waxa dhibina haystoo dhammina waa wax dembi ka yimi waa bimaa kasabat aydiikum dunuubta haddaynu rabno inaynu iska reebnana inaynu bishan u diyaargarowno oo bishii dembiga la maydhi jiray haddaynu rabno acmaasheenna inaynu maximumka gaadhsiin karnana oo ah ajarka ugu badan inaynu heli karnana waa bisha la shaqaysta ajarka ugu badanaya inaynu yana isku dayno halka ugu sarraysa inaynu gaadhi karno warkayga caawa intaas baan ku soo koobaya sala allahuma calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin